بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة kusoo dhawaada barnaamijkeeni adiga iyo bulshada ayaa maanta waxaan idinkula wadaagayaa ama aan uga hadlaynaa arrimo la xiriira social mediaha iyo sidoo kale saameynta uu nagu leeyahay waxaan ognahay bani aadinka markasta waxyaabo ayaa kusoo kordho noloshiisa waxyaabo faa'iido leh ha ahaadeen ama waxyaabo dhibaato leh ha ahaadeen waxyaabo badan ayaa kusoo kordhi kara qofka bani aadinka ah ama nolosha aadanaha oo dhan si guud iyo si gaar ahba sanadihii ugu dambeeyay waxyaabaha dunida kusoo kordhay ama saameyn badan ku lahaa oo teknolojiyadana kamid ah waxaa kamid ah social media ama aaladahan lagu xiriiro loo yaqaano social mediaha ujeedooyinka loogu talagalay social mediaha marka hore loo sameeyay waxay ahaayeen in bani aadinka isu soo dhawaadaan xiriirka bani aadinka ay fududeeyaan ay ka qayb qaataan faa'iidooyinkaas badan ee loo dejiyay ay leeyihiin sidoo kale waxaa meesha ku jira inay leeyihiin saameyn dhibaato ah oo maxaa la dhahay ka bulsho ahaan iyo qofka nafsidiisa saameyn ku yeelan karo qofka tusaale ahaan waxay u saameyn kartaa maana u saameyn karaan waxyaabahan social media dhinacyo badan tusaale ahaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo qabatiin ama inuu qofka la qabsado noloshiisa maxaa la dhahay ay social media ay ku xirnaato la'aanteedina ay ku adkaato inuu noolaado taasna ay keento in wax badan waqtigeeni kamid ah uu ku baxo taleefanka aan ku bixino maanta sidoo kale waxay leeyihiin dhibaatooyin kale in dhaqaale badan kaaga baxo adigoon dareemeynin internetkaad isticmaalaysid bateriga taleefankaad isticmaalaysid nooca taleefon aad isticmaalaysid waxyaabahan dhan waxay kamid yihiin wax qarash kaaga baxayo ama qarash kaaga qaadanaya ay qeyb ka yihiin marka saameyn badan ayay leeyihiin qofka shakhsiga ku yeelan karaan bulshadana sidoo kale waxay ku yeelan karaan saameyn xun ayay ku yeelan karaan sida dhankii akhlaaqda oo kaleeto dadka waxyaabaha xumaa ama yani sharta iyo wax kasta xun faafin lahaa inay awood u helaan inay bulshada si sahal ah wax ula wadaagaan ama dhankay rabaan u maamulaan ama u hogaamiyaan ayay sidoo kale kamid ah bulshada saameyn ku yeelan kartaa marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago 4 arrimood oo ay tahay in qofka social media isticmaalayo uu ogaado ay muhiim tahay ujeedada aad social media u isticmaalaysid maxay tahay inay qof kasta anaga naga mid ah ay inoo cadaato ujeedka iyo hadafka social media aan u isticmaalayno ujeedooyin badan ayaa hadda loo isticmaalaa dada u isticmaalo in ganacsigooda ku qabiyaan ama ku xayeysiistaan dad ayaa u isticmaalo inay maxaa la dhahay isla social media lacag ka sameeyaan oo ganacsi ka sameeyaan dad ayaa waxay u isticmaalaan in wanaaga ku faafiyaan maxaa la dhahay waa dadka la dhaho influencerska ama saameyn ku yeeshaan bulshada saameyn ugu yeeshaan saameyn xun iyo saameyn wanaagsan mid hadba hadafka ay ka leeyihiin marka ujeedada adiga aad ka leedahay social media aad u isticmaalaysa maxay tahay inay ku cadaato aad ayay muhiim u tahay qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad waxaa muhiim ah in aad ilaaliso ama ilaalinta anshaxa bulshada waxay u baahan tahay anshaxeeda in la ilaaliyo social media waxaan ognahay waxyaabaha qofka maxaa la dhahayay ama interactive ku helo ama in lala falgalo ama in wixiisa laga hadlo ama la share gareeyo la dadka kale lala wadaago ama in qoraal laga qoro wax laga yiraahdo waxyaabahaas dhan waxay ku xiran yihiin hadba ma ku xirno micnaha waxa aad soo gelisay ama waxa aad social media dhigayso kuma xirno waxay ku xiran yihiin hadba dadka kula falceliyo ayaa qiimo u yeelo waxaan qiimahooda saarkaas ay ku xiran tahay taasna yani waxay meesha ka saaraysaa in arrimihii ama qadarintii anshaxa meesha laga saaro wax wanaagsan dadka waxaa suurtagal ah in maxaa la dhahay qiimo loo yeeli waayo waxyaabo xumaana in qiimo loo yeelo oo dad badan ay ka falceliyaan sidaas darteedna ay dad badan ay kusii gaarto markasta waxaa muhiim ah anshaxa qofka bani aadinka ah uu leeyahay iyo bulshadiisa inuu ilaaliyo aad ayay muhiim u tahay karaamada qofka adduunka uu ku leeyahay iyo karaamada aakhirada uu ku leeyahayna maxaa la dhahay saameyn ayay ka qayb qaadanaysaa maanta wixii aad social media ku qorto
ama aad ku sawirto ama ku samayso laga yaaba inay adiga kaa cumri dheeraadaan oo gadaashaadii xitaa dembi kaa soo gaaray maxaa la dhahay uu ku qornaado ama haddii wax wanaagsan ay ahaayeenna ajar aad ka heshay inay kusoo gaaraan ayaa suurtagal ah. sidaas darteed marka anshaxa iyo waxyaabaha maxaa la dhahay qofka baniaadamka u fiican keliya inuu isticmaalo uu ku xadidnaado ayaa muhiim ah. waxaan ku xijinaynaa qeybta saddexaad oo ah iyadana siyaabaha loo sugto amniga social media aad isticmaalaysid, xisaabada aad isticmaalaysid, accountiska aad isticmaalaysid, amnigooda sidaa u suganaysid. waxaan ognahay layadan dambe waxaad arkaysaa qofa xisaabtiisa laga block garaynayaa, qofa xisaabtiisa waxaan asigu ku qorin ama aan ku talagalin lagu soo qorayaa, qofaa laga xadayaa. marka amniga xisaabta aad leedahay mar allaale marka ay sugan tahay ayaad sidoo kale waxaad xukumi kartaa waxyaabaha xisaabtaada ama social media accountkaaga lagu soo qoraayo. marka qaabab ayaa jiro loo adkeysan karo amniga xisaabta adigu aad leedahay. waxaa ka mid ah kow in password adag aad isticmaasho. passwordka aad isticmaalaysid inuu ahaado password adag oo aan la odorsi karin ama la qiyaasi karin. labo, in aalada aad ka isticmaasho mobileka ama computerka aad ka isticmaashana aanan qof kale la wadaagin oo dad kale kula isticmaalin, taas oo keensan karto in xisaabtaadii lasoo galo oo kadibna lagaa bedeshto. afar, waxaa muhiima iyadana sidoo kaleeto oo maxaa la dhahayay emailada aad u isticmaasho xisaabaadka accountka social media inay ahaadaan emailo aad u ilaaliso oo qof kasta aan gacantiisa galin, sababtoo ah halka passwordka laga bedeli karo ama waxyaabo looga sameyn karo emailka ama telephone numberka aad ku xirtay waaye. taasna inaad ka taxadirtid ayaa aad muhiim u ah. waxaan kusoo gabagabeynayaa qodobka u dambeeyo oo ah in social mediaha uu ka mid yahay waxyaabaha maanta laisku hagaayo ama ra'yul caamka guud, aragtida guud ee bulshada lagu hago uu ka mid yahay. tusaale ahaan doorashooyinka Mareykanka ka dhacay 16kii Trump uu kusoo baxay, waxay yidhaahdaan waxaa la adeegsaday olole social media dhankiisa laga qaaday dadka si uu ku talagal ah loogu educate garay ama loo baray, loo diyaarsaday inay u codeeyaan hadda murashaxii la watay maxaa la dhahay Mareykanka. sidoo kale Ingiriiska oo kaleeto in Europe maxaa la dhahay Ingiriiska uu ka baxo, waxay yiraahdaan waxaa saameyn ku lahaa social media ayaa saameyn ku lahaa oo dadkii sidii la rabay hadba fikirkii la rabay lagu beertay oo loo hagay. waxaa aaminsanahay sidoo kale in Soomaaliya nafteedii waxyaabaha la adeegsaday ama la adeegsanayo social media uu ka mid yahay, gaar ahaan nidaamka dawladeed ee maanta jiro uu ka mid yahay, ilaa ay soo baxeen terminologies ama erey bixino iska soo horjeeda sida CBB ayaanka baraha bulshada ayaa la adeegsaday, muryaanta baraha bulshada MBB ayaa la adeegsaday. waxyaabahaas dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha social media bulshada wacyigeedii, ujeedooyinkeedii, aragtideedii lagu hagaayay ay ka mid tahay. markastana dadka la beegsado waxaa waaye dadka wax laga dhaadhicin karo waaye, dadka aqoontooda ay yar tahay, wax analyzingkooda ama wax taxliilintooda ay yar tahay ayaa markasta la beegsadaa. tiradoodana ma yaro, kuwaas ayaa maxaa la dhahayay waxaa hadba loo hagaa hadba sida la rabo ama dhanka wanaagsan ama dhanka xumaanta ah loo isticmaali karaya. marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo dad arrimahan social media adeegyadan uga faa'iideysto kaliya dhanka wanaaga ah ee aanan u isticmaalin waxyaabo ama hub ay bulshadooda ku dhibaateeyaan ayaan rajaynayaa. waxaan ku talinayaa ilaa 2 documentary oo aan jeclaan lahaa in maxaa la dhahay dadka daneeyo arrimaha inay wax badan ka ogaadaan ay daawadaan. midka koowaad waxaa la yiraahdaa Searching ayaa la yiraahdaa, waxaad ka heli kartaan Netflix-ka ayaa ka heli kartaan. midka la yiraahdana waxaa la yiraahdaa Great Hackerska waaweynaa. labadaas documentary markaad daawataan waxaad ka ogaanaysaan saameynta social media naftaada uu ku leeyahay, siyaabaha loo adeegsaday, waxyaabahaas dhan ayaad maxaa la dhahay wax kaaga baxayaan. waxaan rajaynayaa in ereygii aan ugu talagalay ee ku aadanaa social media aan idin soo gaarsiiyey. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.